بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن أول أجسام داوريال إلهام في هذا الليل والقادم يسوي القانون أول أجسام حد كسر دواتان برامج كم مقال قناشة برامج كتبات لا كتبات والبعض كتاوتان لبشيك SBC ساعات كتبات كان برامج كم مقال قناشة أو ستة سنة كريم ما ليا حرون طلبات TV وكل هاي مجال الشيء حر برامج كده بس أصيل يعني وأخبار عبد كتبات كان برامج كمقال قناشة وحين قصة قادم بالله حرمها نبوي بالشرال waxayna booqanay goobaha lagu iibiyo shidaalka waxaan wareysi la yeeshay maamo Salaamo oo ah maamo in muddo ah iibinaysa shidaalka waxayna iga warantay qaabka ay iibinaysa shidaalka iyo haatan heerka uu marayo iyo qiimaha shidaalka magacayga waa Salaamo Mataan Axmed la yiraahdaa Salaamo Mataan Axmed la yiraahdaa shidaalkan in badan ku soo gudi jiray geeditaankiisa nis anoo saaran ka soo bilaabay haddana waxaan ku xigsaday anoo shubta booyad shubta oo fuustooyin ku gala haddana saacada ay saaran oo ajibaan samaystay gobolana wax waan siiyaa oo tuulooyina u raraaho toban fuusa shan fuusa wax iga soo doon usoo ta ganacsigu saas wixii Ilaahay naga siiyana keenna marna waa raqiisaa marna waa qaaliyoobaa wuxuu qaaliyoobaa mar xilliyada hadda oo kale kulaylaha oo waraabka beeraha iyo ceelasha iyo loo bato ama gobolada baabuurta loo raraayo baabuur toban fuusa qaadan jiro gobolada baxaya markaan oo kale u qaaliyoobaa shidaalka naftada wali aye wax badan isbedelay oo hadda wixii hore sidii ganacsiga faa'iido loo heshay loogu heshay waxaana keenaya ganacsiga tirada uga batay oo meelo badan laga furay dad badan soo galay shidaalka ummadii ganacsiga u wada gashay qof walba naftiisa u la harjada ganacsiga bato meelihii lagu gadaya bato day gobol tahay day tuulo tahay day xaafad tahay inta hadda macaamiisha hadday badatay dhinacyo badan shidaal siiyaan jamla waa u dhibaa dad tuulooyin u raraayo gobolo macaamiil badan oo ugu soo saacada xiisaynayso ugu soo leexatay way jirtaa markii caagada ii saaranay hadda ii fiican tahay ganacsiga ka canshuur caqabad kale ma kulano shirkadda shidaalka booyada noogu soo qaad booyadaha iyaga leh waa noo keena way noo shubaan laakiin canshuur anaga noqosayda maaha midaas shidaalka marka soo baxay waxba naga qaad laakiin shatiyana laga rabaa maaliyada laga rabaa leeyahay canshuur wax badan laga rabaa anaga wax kale dawladda naga qaatay laakiin shidaalka canshuur xaqiisa ma jirto laakiin riddanada laga canshuur caqabadahan kala kulana waa wadada xiran waxaan ugu badan waa wadada xiran ugu badan kira badan aan ku jirnaa laami fiilaan deganahay waxaan laga yaabaa koronto igu socoto wax walba igu socdo kira badan la socdo shaqaale igu socda waxaan laga yaabaa in hal asbuuc ama 4 maalmood ay iska xiranto wadadii qolkaan oo wax loo soo gali karaa la arag iska dhex joogna tan baan ka hoyaan caqabada ugu badan oo hadda haysta waxa waaye jidka xiran ama ugu daran waxa waaye baasiinka wali laba nooc waa guduud iyo cagaar naftada waa cadaan iyo guduud baabuurta waaweyn oo macnaha wixii dawladda waxay isticmaalaan naftada cadka naftada guduudna baabuurta BLka iyo baabuurta weyn xamuulka isticmaasha dadweynaha baabuurtan orodka badan oo dadkan madaxda wataan ama dadka ganacsadaha wataan waxa waaye baabuur orod badan oo loogu talagalay naftada cadaan u fudud orod badan baabuurta socod badan yiraahdaa marka kuwaas oo si gooni nooga gataan kuwa xamuulka ah oo beeqan soo rama xataa midda guudan oo leeyahay ku sii daran si ugu cimri dheereeyo lacag badan uga helaan ila muuqata inaan nimanka ka culays badan sanadadan intii la arkay kale Ilaahay culays ka badan iyagu saaray laakiin markaan anagayna saarnay sanadadan oo sidii loo qaxay oo loo dhigto loo barkay dibka anaguna saarnay aniga ilmeyga agoon maahan 30 sano aniga kaliya oo kacay oo ku faayo orday waana dhalayo dhalmana waa waday shaqana waa waday ma fariisan mid baa socdo miskan fadhiya foolinta qabataan guriga aaday kaas soo dhalay marka waxa waaye dhibka keena waxa waaye duruufaha jiray nimanka shaqo la'aantoodii adiga hooyaan ka fariisan karin dhibkii cunugaadi ama waa baahan yahay ama waa jiran yahay ama waa wuxuu ka rabaa waxbarasho ka rabaa wax badan jiro lagu kalifay inaan wax walba gadno hadda islaam ma leeyahay waxay tiri Allah islaam baa gadaysa walaalo kama gateenay tiri nin haddii aan ogaado islaam shidaalka gada walaalo meesha fadhiyo marka alxamdulillah rabbil caalamiin shidaalka waa lagu nasqaba waa lagu soo marsaday ilaa haddana waxa caqabada noogu hayo nagu badano waxaan way raqiisan way faa'iidaan jidka xiran noogu daran anaga inta hayso dhibka waa midaan la laamiga inta joogto shidaalka waxa waaye basiin waa isku nooc waana isku qayme waxaan gadaa 27 fuusta markay waxaan gadaa 140 naaftada 120 gadnaa oo doolar gadnaa 120 aliya iyo waxa ay weli waxa qashin ka la gadaa ayana mid baqaymo leeyahay oliyadana qaymay leedahay waliyo fariinta qaymo gooniyaha la gadaa waxaan gadaa aniga oo muhiimadaydu tahay waa oliyo iyo shidaal afarta nooc yahay baasiin gaduudan baasiin cagaara nafta cad iyo nafta guduudan wadada xeerana kala kulnaaho baabuur soo istaago u socda afgooda soo istaagay ex control anu geey waay
ta mooto saaray mooto weyn afar lugoodley saaray dhex kala soo noqoto way jiraan dhibkaasaa naga haysta haddee waa markaas waa ka siraysanaa inta booyad ku qaadno meelo kala martay waxay aan ku shubnaa ex control adigu war isku soo laay caqabada annagana haysata wixii ilaahay xaggiis ku maamulay laakiin waa wadada xiran aan ugu dar meeshuu ka bilaabo uu yaqaanaa aniga haddii la yidhaha dahab gad meelan ka bilaabo ma aqaan laakiin markii iga hore waxaan ka bilaabay 42 caag oo baasiin oo ka qaaday nin ganacsanayo balaasii joogan ka bilaabay miisan saari jiray sidaan u bilaabay waa ka hari waayay iyadii heerkan ila soo gaartay inaan sii socdana waa rabaa haddii aan noolaa nafta igu jirto wax dhiban laguma hayaa ka waxaan ognahay wuxuu ilaahay sii lahaa inuu socodna siinay anfar haddii laygu dhajiyo waxaan cunlaa ma cunayaa waa dad ilaahay yaqaano islaam qof walba risq ilaahay u talagalay saak marka soo ilaahay u talagalay qof kale ma qaadanayo marka haddii laygu soo dhajiyo wax dhiban ma arko waxbaan kala qaadaynaa waxbaan isu faa'iideynaa xataa weliga qof aan la macaamil kale ma kulmo inta hadda aan googa inta bishaan googa nin odayaho cirada inuu $3 mooto ugu shubay igala cararay $3 ugu shuba waa iga weyn aniga waa ardayda iga weyn madis waa cadi markaan ugu shubo carar ilaa waxaan sii fiirsiyay telefoonka gabaysa waa ka har caqabada ugu waa shidaalkaas oo laga carar mar way dhacday in laga cararaa taasni wastooyinka shidaalka wixii matooro waxa jira matooro aan shidaal siin matooradaas iyo dadka loo raray waxaas ugu shubaa laakiin aniga haamana igu jira haamankaas oo igu jira baasiinka naftooda saacadaha ku xiran haamankaas saacadaha ku xirsan wax shidaal oo shuba fursad qof loo qaado ma kuma shubto faa'iido noogu jirto haddii dadku fiicnaanay faa'iido ku jirto haddii mooto bid haday socoto wadada cillo ma noqotay ee maraan waxba soconay mooto bid haday socoto way ka gadanay maanta $2 $3 waa lacago kuna loo fadhiyaa lami kun shilin loo wax gada arkay marka kuwa anigu macaamil ah jira oo shidaal sida lama afar kale hadda kuwa fadhiyo fustooyinkaana u dhiibaa ayaga shushuban samlaan fustan u siiyaan ayagana waxay ka sii raadsan markaas lacagta ama waa ku go'ay ama waa soo cadeynay wadada xirmatay shiyaalkii iga daatay waa mar waa gudbay waa maraq loo gudbay waxaan la siiyay shirkado qaaralaasay shirkadaha ay dekadana ka soo siiyay bishii 100 fusta dal camna 100 kaas waxaan laga bishii markay 5 tag tagala gaarto inaad iska shubno lacag aan dal ka rabaa markaas iska shubno intii kale na soo siinaa shiyaalku waa kaas qaabkaas u helnaa oo hadda lacag cash kama soo bixino shaqaale ahaan iyo kiiro iyo koronto intaba alxamdulillah rabbil caalamiin way iga bixisaa waxna waa ka helaa qofku bees wax ka heli ma joogo karmo waxna waa ka helnaa bil waa ka helaa kiro iyo wax bal ilaa $800 la iga qaataa shaqaalaha haday tahay iyo koronto iyo kirada gud $800 ku bixiyaa la iga qaataa xilliga kuleelka oo xilligan uu socod badan xilliga kuleelka uu socod badan yahay oo shaalku socod jamlay tafaariiqda xilligan qof way kara mal xilligan qof baabuurkiisa inuu soo qaato roobo kayfiisa xilligan socod badan ki gobol baxaan xilliga wadada iyo qamaahan kama xirna oo safaradu way socdaan marka xilliga kuleelaha shaqada ku socod badan liitar markii laga hadlayo waa heshiis wax walba heshiis waa markaan saacad soo marsiino motor u kicino sida shirkada iyo waxa wax siino iyo hay'adaha waxa wax siino qaybo la isku ogyahay ugu dhufanaa laakiin sida caadiga ah oo inta samana dadka laga siiyo hadda mootada inta samana laga siina ina bilaawi raawa sida wax walba in adaygu bilaawi ka rabaa halka hadda ay leedahay hadaadan u baran oo soo bilaawin ma ilaa hadli kartid mana toosi kartid waa waay aniga shaqada anigoo yar 17 sano oo jiraan shaqo bilaabay 30 sano hadda waxaan gaday shidaal ma 25 sano intii ka horeeyna dukaamo iyo maqaayad waxaan soo shiday noloshayda meel 17 sano shaqo bilaawaa wada wali ilaa hadda alxamdulillah ma fariisan markaan fariisay mar aan ma xanuunsan oo wax kale ma fariisan hatta ur leeyahay kursiga maraw kala baa jiro oo shidaaladu soo kala daahaan markay daahaana waa ganacsatada waaweyn wuxuu yaalaa kaydadka hadda dhix ku yaalaan faa'iido dhabalad ku dhufan hadii la ka soo ka maqan uu qaadiyoobo difashad ku jirta oo dayn bilay ama wax waa iska beec dhana sida beecsharo dhana saas maray kala goodo qofku wuxuu yaalaan ka macaasha alxamdulillah marka dib kuma qabno meesha dib kuma qabno alxamdulillah dibka aan ku qabno wadadaas aan loogu daray ma jirto mar soo waaye laakiin waa yaraada ka shidaalku waa qoto daruuri waxaan marna laga maarmay waxaan laga maarmi karin waa motorka ku shaqeynaa korontooyinka ku shaqeynaa baabuurta ku shaqeynaa marna asaga laga ma yaabo inuu la socdo waxba ma taaban halka aad fadhidaan fadhiyo kaligeena waa igu soo dhacay waa soo dhacay waxa ku dhacay wixii feerar soo gaaray waa soo jabay waxana waa duduban ilaahay waxba ma shidaalkan dabka ma dhala annaga waxba igma gaarin ciid iyo bus iyo jajaban naqariyay waan fiiriyay in meeshan taan arkay sidoo kale midaan saxafi idan sidoo kale inta isku sii noo jiraan laba qarac meeshan joogna alxamdulillah ilaahay ba badbaad ala iskale meesha ilaahay ku badbaado
الحمد لله رب العالمين ويجرين لكن هذا أيوة ما كانت جبارة إلى شقين جرتوا سيدا بدن بيو شقين جرتي markii shaqadii ay saacad noqotay habeenkii rabta in la soo jeedo laba nin ay shaqaysaha heegan alla maalintii anigu waa joogaa ninkaas oo habeenkii iga dambeeyaan rabaa 3 saac oo xidhan inoo kala waxaan ku dhiiri lahaa inta ilmahooda waqtina inay shaqaystaan aan ku dhiiri lahaa aysan ilmahooda u xamaashan si wax ugu soo baxaan alxamdulillah waa hagaag daawadayaal bal markaan haddii aan u jilaaco dhanka ragga waxaan waraysi la yeeshay Cabdiraxmaan oo kamid ah dhalinta iibisa shidaalka waxa uu iga warmay dhankiisa faa'iidada iyo khasaarada uu leeyahay shidaalka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Cali. Yuusuf waxaad iibsaa shidaalka imisa sana ayaad ku jirtay inta shidaalka? Shidaalka waxaa ku jira 2012 bilan. Hadda 2019 sano lagu jiro. Waxay noqonaysaa 7 sano. Si fiican. Waa gartay halkan aad ka shaqaysid waxaan ku shidaalka ugu yimaada digada ugu yimaada wallaahi xagga beecada la yiraahdo isku mid leena sida caadiga oo macnaha gaariyada ay ku qaataan maaragtay isku mid leena beeca waa gartay dadkaas oo kale shidaalka halkay ka qaataan idinkuna halkay ka qaadataan wallaahi horta dadkaas labay u kala baxayaan dad sidoo anagoo kale digada ugu yimaada shidaalka dadna anaga inaga qaadanayaan 5 fuusto 10 fuusto kadib ajibkooda ay ku shubanayaan sidaas ay gaariyada ugu gadanayaan saas wax jiraan shidaalka insan nooc ayuu kala shidaalka wuxuu kala baxaa adiga koow waxaa jiro gaasaa jiro fahmaysa bisiina jiro naftaa jirto sidaas marka saddex nooc waa ma sha Allah ni horta xilliga kuleelka jiro shidaalka isticmaalkiisa ma sha Allah aad uu kala socdaa ganacsatada markaas oo shidaal ka shaqeeyo markii qabow jiro isticmaalkiisa ma badna laakiin haddii kuleel jiro isticmaalkiisa wuu badan yahay gaadiidkana si fiican u qaadanayaan shidaalka ayuu dhowr soo dhameeyay gaariga macnaha maxay yeelay waxa la isticmaalaa mukiif xilliga kuleelaha mukiif la isticmaala marka mukiifkan waxa waaye gaariga intuu cunaayo kala cunaa sidaas awgeeda socodkeeda aad u badanaa sidaas oo marka bal muddadii aad ku jirtay iibinta shidaalka ma jira waxyaabaha caqabadaha aad kala kulantay shaqada wallaahi si fiican waxyaabaha caqabadaha waa jiraan garaash lambar 4 ku yaala ka ganacsi jirnay shidaalka ku iibi jirnay marka waxa dhacday maalmaha ka mid ah inuu macnaha meesha dib ugu imaado meesha koronta ku jirtay shidaalna uu degay marka korontadii dib dhalisay kadib wixii marka saanti oo meesha yaalay baabi ay noqdeen saas oo jira shidaalka hadda aad iibisaan qaab noocee ay iibisaan waxaad u iibisaan liter mise waxaad u iibisaan si jumla ah wallaahi anaga sida hadda aan macnaha ku iibin waxa weeyaan marna jumla waa dhiibnaa jumlana waa dhiibnaa tafaariiqna waa dhiibnaa literna waa la gadaa fuustad isku xiran waa la gadaa saas والله horta way kala duwan yihiin macna qofku markuu laamiga u saaran yahay inuu gudaha ku jiro way kala duwan tahay anaga hadda sida banaan dad waxa naga qaada kaliyantii fahmaysan laakiin dadkii mar hore aan heli jirnay oo laamiyada aan ku arki jirnay ma haysano ya alxamdulillah dadkii markaas oo kaliyantii ahay aanu soo wadaayo dad kale sida macna anaga aan ugu ganacsano sida wanaagsan oo u dhaqaaleeno oo soo dhabeeno shidaalkeena in badan ma sha Allah nadaafadiisa waan ku dadaalnaa dad kale u soo sheegayaan waxa laga yaabaa marka dad ajibka qaadanay xitaa ma aragtay inay noo imaadaan oo ugu soo biiraan maalintii marba si waa maalin waxaad arkaysaa inay 20 fuusta ee baxdo maalin inay 30 fuusta ee baxdo maalin waxaad arkaysaa inay wax bixi waayo maalin si waa hore waxa uu sheegtay shidaalku in marna uu leeyahay naftaasoo soo biziyaa soo bal litirkii oo kale litirkii oo kale insa hadda marxaladda hadda la taagan yahay litirka waxaa dhiibinaa 75 halka litir aan ku dhufanaa marka anaga dad markaas xiriir la leenaa jirto oo macnaha keedad ku leh dekada dadkaas aan telefoon ka wacina aan la xiriirina sida markaas anaga aan macnaha shidaalka inta aan rabno aan ka dalbahayna
kadib waxaa jiro booyada jirto oo macnaha dad khaas ah leh dadkaas markaas la xiriiraysa waxa leedahay shidaalkaas inay soo qaadida rabaa kale qofkaas waa la xiriiraysa goobaha kale ee lagu iibiyo shidaalka xiriir ceenka waxa goobaha kale xiriir hadda caadi oo naga dhaxeeyo ma jirto waxa weeyaan sida hadda ajbiyada qaar sida hore ku sheegay kuwa imaanaya anaga wax naga qaado kuwana dekadii toos ugu kaystaan sidaas oo wax kale oo xiriir oo naga dhaxeeyo oo na dhaxmar ma jirto adigu hadda waxaad ku sugan tahay xarunta ma jirta xarumo kale aad ku leedahay qabiilka gobolka Banaadir mise gobolada dalka maya xaruntan hadda taaganahay bis intaan hadda haystaa aniga milkiilaha oo macnaha meesha iska leh ma iyo horta waxna ay min oo macnaha meesha mas'uul loogu dhigay oo shidaalka oo macnaha sida uu ku baxay sida markaas loo kala wadaayo on adiga shaqaalan ka ahay marka iyo ku dhiirigelin ma ka shaqada shidaalkaas dama in muddo aad ku jirto shaqada ma sha Allah alxamdulillah aniga waxa ku dhashay joora ku dhashay markii magaaladan waxa joogtay hooyaday ilaaha uu naxariisto hooyaday iyo gabadha hadda aniga shidaalka u gadaayo saaxiib ahaa jireen markii hadal waxay isku soo qaadeen shidaalkana raba macnaha qof markaas aaminsanahayo ii gado ii kala haga macnaha oo aminka uga qabo oo ii shaqeeyo aan u baahanaay ee hooyaday ku dhaaday kadib hooyo ila soo xiriirtay sidaas aabigeeda ku imaaday 2012 imaaday walaalada dhamaan walaalaha waxaan u diraa fariina inay nala soo xiriiraan si fiican u soo dhaweeyna ma fahmaysaa shidaal nadiif ah isku dheeli tiran oo hay galaas laga gadaa insha Allah السلام عليكم waaga guud ahaan baa qiyaaray halka ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka muuqaalka nolosha toddobaadkan si toos ah kaga imaanayay xarunta labaad ee TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Muxtaar Cabdi Aadan xagga kaamirada barnaamijka waxa iga saacidayay saaxiibkayga Cabdirashiid Sandheere isku dawladka barnaamijkan waa Faadimo Cabdiqaadir Xasan inta barnaamijkan barnaamijkiisa xiga aynu dib u kulmi doonaa qaaray waxaan idin tagayaa sidaas iyo nabadgelyo